ninna looga dacwooday in uu 9 mukayf ku xirtay gurigiisa. intaan u gudagalin sheekadan haddii ay tahay markii kugu horeyso aad soo booqato fadlan nagu soo biira mahadsanid. nin ku nool dalka Singapore ayaa looga cawday qabow ba'an oo ka imaanayay gurigiisa. dariskiisa ayaa sheegay in ninkan uu 9 mukayf ku xirtay gurigiisa. xilliyada xagaaga ah dalka Singapore waa kulayl iyo huur daran oo ay dadka dhibsadaan. laakiin dadka ku nool dalkaasi ayaa inta badan waxay isticmaalaan ama ay aaminsan yihiin in kulaylkaasi uu kaga filan yahay 1 iyo 2 marwaxaad oo guryahooda qabow uga dhiga. laakiin hal nin ayaa gurigiisa waxa uu ku rakibtay 9 mukayf si uu u helo qabow. jaarkiisa ayaa si kastaba gidaarada waxa ay ka dareemeen qabow daran oo ka imaanaya guriga ninkan. ficilkiisa ayaa dadku waxay ugu dacwoodeen laamaha ammaanka. jaarkiisa ayaa ku doodaya in ninkan kuleelka uu ka sheeganayo ay kaga filan tahay 1 marwaxaad haddii kalena uu isticmaali karo 2 marwaxaad. laakiin 9kan qaboojiye oo gurigiisa ku xirtay ay dhibaato u keenayso dadka deegaanka la degan. waxayna dadka dariska la ah ninkan ay sheegeen in aysan suuragal ahayn in uu 9 mukayf ninkan ku xirto gurigiisa.